Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada channelka MMS for Soomaali oo ka daawatan sheekooyin waaqici iyo weliba mawaadiic cajiiba. Haddaba haddaad jeceshahay fiidiyoyada noocaas oo kale hayloobina kusoo biirtid channelka gambalalkana aad furato si ay kuugu yimaadaan fiidiyoyada markaan soo gelin una noqotid qofka ugu horeeya daawada. Aan bilowno muuqaalka maanta. Bathory waxay ahayd gabadh ay gaadhay waxshinimadeedu inay cadaabto ilaahay baa wax cadaabay dumarka gaar ahaan kuwooda quruxda badan. Gabadhan Elizabeth Bathory waxa ay dhalatay 1560kii waxaana ku dhalatay mid ka mid ah gobolada Hungary. Gabadhan waxay ka dhalatay reer madax ah. Inanka adeerkeed wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha Hungary halka adeerkeedna uu ahaa boqorka Poland. Haddaba gabadhan waxay aad ugu waalneyd quruxdeeda oo waxay mar walba ilaalin jirtay quruxdeeda gaar ahaan markii ay gaadhay 40 jir markaasuu ka soo muuqday jidhkeeda codcodka jidhka ee da'da u keento. Gabadhan Elizabeth aad ayay uga cadhootay arrintan iyadoo daydayday habab aad u badan oo ay ku soo ceshanayso quruxda wejigeeda. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa mid ka mid ah shaqaalihii u shaqaynay gabadha Elizabeth gaar ahaan timaha u hagaajinaysa ayaa waxay si kam ah u soo jiiday timihii gabadha Elizabeth. Elizabeth way cadhootay waxaana ku dhufatay dhirbaaxadaas oo ku qasabtay in gabadhaasi dhiig ka soo baxo dhiigaas oo ku soo dhacay gacmaha gabadha Elizabeth. Elizabeth waxay u kacday inay iska soo maydho dhiigaas laakiin markay iska soo maydho waxay aragtay wax la yaab leh. Waxaasina wuxuu ahaa in jidhkeeda markii dhiiga ka maydhay uu jidhkeedii noqday mid aad u fiican oo sidii hore ka qurux badan. Waxaana ku timi fikrad ah in dadka dhiigoodu uu soo celinayo quruxdii ay lahayd markii hore. Gabadhaas Elizabeth markay fikradaas ku soo dhacday waxay si toos ah u tagtay qolkii ay joogtay waxaanay qabatay gabadh yarayd iyadoo ka soo laalaadisay meel sare. Kadibna waxay hoos dhigatay weelkaas ay hoos dhigatayna waxay ugu talagashay inuu dhiiga gabadhaasi intay ku jeexday midiyo dhiigaasi ay ugu soo daato weelkaas kadibna ku meedhato. wayna samaysay way ku meedhatay xaggaasna waxaa ka bilaabmay dhibaatooyinka dilka iyo cadaabidda dumarka. Waxaa ka caawinayay dilkan iyo weliba dembiyadeeda badanka afartaas qof waxaa 3 dumar iyo 1 nin. Ninkana waxay ugu talagashay inuu u dilo oo u sameeyo qaybaha dilitaanka dumarka iyo weliba inuu u keeno dumar fara badan. Waxaanu ka mid ahaa dadka ugu badan ee caawinayay gabadhaasi Elizabeth. Ninkaas oo ikhtiraacay habab badan oo cusub oo u dilo hablahaasi. Gabadhan waxay iska ilaalin jirtay hablaha inta leh iyo weliba kuwa aadka u dhuuban waxaana keensan jirtay kuwa aadka u quruxda badan ee magaalada joogta deganaa. Arrintu kuma eekayn guriga ay ka deganeed Hungary ee marka ay u tagto qoysas kale madaxda ah ee Vienna waxaa had iyo jeer laga maqli jiray guriga ay deganeed qaylo aad u badan laakiin dadka meeshaas deganaa umay dhawaan kareen gurigaasi sababtoo ah waxay ahayd gabadh suldaamada waxaana bixin jirtay amarada qaar waxaana xasaanad ka haysatay xukuumaddaasi waqtigaasi joogtay. Qaar ka mid ah khubarada cilmi nafsiga ayaa waxay sheegeen gabadhan inay ku waanleed quruxda iyo weliba xukunka ay xukumayso dadka qaar kalena waxay u maleynayeen gabadhan inay heer sare ka gaadhay waalida. Haddaba gabadhan waxay ku caanbaxday dil wadareedyada ay ku sameynaysay hablaha yaryar quruxda badan kaliya si ay u ahaato gabadh qurux badan sida iyadoo aaminsaneed uguna meedhato dhiigga hablahaasi yaryar. Tanna mararka qaarkood waxaa loo celiyaa in gabadhan ay aaminsaneed khuraafaad iyo weliba ustuuro odhan jirtay in hablaha yaryar dhiigooda uu soo celiyo dhalinyarnimada. Waxaana mararka qaarkood la sheegay in gabadhan isku dirsan jirtay khamriga iyo weliba dhiigga dadka kadibna ay caafi jirtay. waan ogeynaa arrintu iswisaa tahay laakiin fadlan dhamaystirta fiidiyowga. Markii la xukumayay gabadhan waxay sheegtay inay dishay 650 hablood marka laga reebo kuwii ay cadaabi jirtay ee aanay dilin. Hablaha qaarna waxay ku samayn jirtay oo ay ku odhan jirtay hilibkiina gooya kadibna cuna kaliya sababtuna waxay ahayd inay qurux badnaayeen. Haddaba waxyaabihii lagu cadeeyay gabadha Elizabeth markii ay maxkamadda joogtay waxaa ka mid ah in gabadhan ay dishay gabadh kale kadib markii ay diiday inay awaamirteeda qaadato waxaana ay ku samaysay gabadhan intay qaniintay ay ka goosatay waslad ka mid ah hilibka gabadhaasi kale. Meydka dadka ay dilaysa ayaa aad waxa ugu batay mandaqada gabadhaasi deganeed heer ay gaadhay in ay hoos geliso qaar ka mid ah meydkaasi sariirta hoosteeda waxaana isku bariyeeli jirtay in dadkani u dhinteen cudur aan la garanayn. Waxaaba la sheegaa mararka qaarkood inay dad kale lacag siin jirtay si ay uga soo aasaan meydka dadkaasi qaar ka mid ah. Gurigeeda gabadhan waxaa ku yaalay qafas ama shabag sare shabagaas ay ku ridi jirtay dadka kadibna waxay la dhici jirteen leeb iyo qaaso waxaana dhiiga dadkaasi ka soo di'i jiray ay u hoos dhigan jirtay foostadaas oo ay buuxsan jirtay mararka qaar. Waxaana la sheegaa mararka qaar inay iyadu hoos tegi jirtay meeshaasi si ay ugu meedhato dhiiga dadkaasi ka soo daadanaya. Elizabeth waxay ahayd gabadh ku waalan dilitaanka heer ay ku fikirtay inay soo qabsato hablaha qoysaska
madaxda ah iyadoo u malaynaysa in hablahaasi ka saameyn badan yihiin kuwa ay hadda haysato. waxaanay soo qabsatay mid ka mid a hablaha qoysaska madaxda. gabadhaasi way ka baxsatay nasiib wanaag, waxaanay u tagtay reerkoodii, waxaanay wax walba kusoo facadaysay gabadhaasi wax walay sameyn jirtayba. haddaba waxaa batay shakigii laga qabay qalcadda iyo weliba qasriga gabadhaasi Elizabeth, waxaana habeen madow loo soo dhacay qasrigeeda, waxaana la arkay waxyaabo la yaab leh iyo weliba waxyaabo naxdin ah. waxyaabahaas oo ay dad qafas ku jira la arkay, dhiig qasriga meel walba ka da-aya la arkay, iyo weliba dad xagga hoose loogu tegay qolal hoose oo ku xidhan meel mugdiya. gabadhaasi Elizabeth waa la soo qabtay waana la xukumay, waxaana lagu xukumay in lagu xidho qol yar oo ku yaala qasrigeeda oo xagga saraa, inay si ay uga tanaasusho wax kasta oo ay lahayd oo maala. 4tii la shaqeynay iyagana waa la xukumay, mid ka mid a waa la sii daayay hablihii, 2dii kalena waxaa laga gooyay faraha, waxaana lagu dhex tuuray webiga, ninkiina waxaa laga gooyay qoorta. muddo kadib gabadhi Bathory waxaa laga helay qolkii yaraa ee lagu xidhay iyadoo meyd ah. haddaba waxaa laga sameeyey filmaan badan gabadha Bathory, waxaana ka mid a filimka la yidhaha Bathory oo soo baxay 2008. haddaad jecesha filmaanta baqdinta, filimkaas oo daawo aad u aragtay sheekadu siday u dhacday iyo weliba waxyaabo badan oo kale. sheekadaynu maanta intaasay ku ekeyd. intaan fiideo kale ku kulmana khayr badan baan idiin rajaynayaa. maca salaama.